maalmihii ugu dambeeyay waxaa magaalada Hargeysa socdaal ku joogay hogaamiyaha maamulka Qaatumo Professor Cali Khaliif Galeer waxaana kulan uu la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan Somaliland oo uu kamid yahay madaxweyne Siilaanyo. wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariye ayaa Professor Galeer ka wareystay ujeedada socdaalkiisa halka ay marayaan wada hadaladii Somaliland iyo waliba Qaatumo iyo arrimo kale. ugu horeyna waxa uu weydiiyay ujeedada socdaalkiisa. magaaladan waxaan u imi inaan diyaarad ka raaco transit inaan ku maro sababa hadda aanan ku dheeraanayn baa igu kaliftay inaan diyaaradan ka filayay inaan ka qaato Buuhoodle yaa suurtoobi weyday. sidaa awgeed magaaladan airport weyn oo aad u fiican baa ku yaal taa inaan ka faa'iideysto yaan meesha u imi. magaaladan waqti hore ay ugu dambeysay runtii aad bay u dhisantay, aad bay u qurux badan tahay, inkastoo aanan waqti badan ba helin aan soo warwareego, laakiin intaan arkay yaa qancisay hawl badanna meeshan in laga qabtay. maamulka Somalilandna muddadii hadda uu meesha joogayna waxaan u maleynayaa magaaladan magaalooyinka kale qudadooda dariiqo baan soo maray Burco iyo Berbera iyo laakiin dhismaha iyo wali wadada weyn ina Afmadoobe ilaa Ceergaabo lafteeda ina Afmadoobe maraan soo maray la tilmaamay wadadii Ceergaabo leeyahay 4 saacadood baa lagaga imanaya meeshaasna maalmaha marka roobo ku jiraan loo aadi jiray. marka halka aan ku noqday waxaan u imi transit baan ahay. nasiib wanaag ways arag madaxweynaha waa arkay xalaan is aragnay niman odayaal oo kale oo maamulka iyo baarlamaanka ahna waa is aragnay, laakiin nin wada hadallo iyo arrimo u socday halkan inaan ku qabsano ma ihi. خاتمية Somaliland wada hadallo socday in halkii arrimahaas maraya arrimahaas waxay marayaan Soomaalida waxay tiraa war hal isii iyo hoo hadal badan baa u dhaxeeya. annaga iyo Somaliland wada hadal baa noo bilaabay muddo hadda 2 sano ku dhow inaanu wada hadallo oo qolo walba iyadoo danteeda wadata oo danteeda daafacanaysa haddii aanu heshiin karno oo nabad aagan dadku balaynay marsalka dhigaan oo yoo laga dhigto wixii haddii la wada hadlo dana badan baa naga dhaxeeya, dhibaatooyin badan iyo colaad iyo burbur iyo dhiig badan oo daantaana waa jiraan, indhaha kama qarsanayno. haddana Soomaalida waxay tiraahdaa waa seeto wixii ay u muuqato inaanu ka wada hadli karno isla ogolaan karno iyana in la holiyo waa fiican tahay. Yurub bay ku kaliftay oo Germany iyo France ama Germany iyo Ingiriis yaale isku hal unit baanu noqonaynaa ama dhaqaale ama yoolku yahay siyaasad xitaa hal state baanu u soconaa. halkanna meeshanna waxa yaalana waa aragnaa ma uunaha Qaatumo iyo Somaliland, laakiin Soomaaliya ama geeska Afrika oo dhan yaa runtii fursado badan muuqdaan, dhibaatooyin badanna ay ka taagan yihiin. raqba waa ku raggeed wixii uun maanta nool yay u baahan tahay in ay isaga yimaadaan ka wada hadlaan. khayaal iyo waxaan jirin in lagu wada hadlana laga fiican wixii dan loo moodo la ikraha fi diin cidna lama khasbayo. taana annagu kulli haddaanu Qaatumanay diyaar baanu u nahay wada hadalladaas, laakiin inay waqti qaadanayaan waa in lagu talagalaa. wada hadallaan islaanahay haddaba waa la soo afjari karaa. arrimo culculus baa meesha yaala ummadaanu dadkan waana kala maqnaa, colaad bayna ku kala maqnaayeen, haddana waxay isu yihiin iyo wax ka dhaxeeya. Djibouti baa la tagay, Addis Ababa la soo maray, Dubai waa lagu kulmay. wada hadalladu magaalooyin kala duwan bay ku qabsoomeen. kulanka kan xiga halku ku qabsoomiya maxaa gabagabada laga filaya? kulanaanu hadda heshiis ku nahay oo taariikh oo arifan iyo meesha lagu qabanaya ma ay jirto. anigu hadda Nairobi aan u socdaa, shir Nairobi lagu qabanayo weeye waxaan u socdaa. haddaan Nairobi ka soo noqdana kulli magaaladan waa soo mari doonaa. si kidisana waa ku imi si aanan xitaa cidnaba u sheegin oo maamulka Somaliland private visitkay transitkaygaas saasaan door mooday. laakiin madaxweynahina is aragnay, wasiirada is aragnay, gudoomiye Muuse Biixi is aragnay iyo Maxamed Kaahin. waxaan jeclahay marka dambe aan soo noqdana haddaan maalin iyo laba waxay doonaysaa ha noqotee in aan isa sii aragno. in su'aashan aad weydiinayso goorma
la shiri doona iyo xagee lagu shiri doona waa arrimaha ay tahay inaan ka wada hadlo isla meel